السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوداش قيمة قيالو ميل والبو نغا داوانيسان halkan waa barnaamijkeeni gaarka ah ee dunida Soomaalida oo alaaba nagu barateen inaan ku soo qaadano barnaamijyo aan u aragno in mar walba ay yihiin barnaamijyada ugu mudan in loo soo bandhigo bulshada Soomaaliyeed meel walba joogto shanta Soomaaliyeed annagoo mar walba mudnaanta siina meelaha markaa xiisadu ka taagan tahay barnaamijkeena maanta waxaan gebi ahaantii ku soo qaadan doonaa xaalka Jubbaland annagoo ku faalayn doona dowladda maamul goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka xiriirka ka dhaxeeya xaaladda dhexdooda ka taagan iyo xaalka dalku ku sugaya iyo annagoo welibana talooyin siinayna madaxweynaha dowladda federaalka iyo prime ministerka iyo madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland barnaamijka waxaa idin daadihinaya anigoo ah Khaliif Cabdi Cali dhammaantiin soo dhawaada kana qayb qaata barnaamijka insha Allah ilaahay hadduu yiraahdo haddii sad weydeenba ismaamulka Jubbaland doorashadii baa ka dhacday Axmed Sheekh Maxamed Islaam ayaa waxaa loo doortay madaxweynihii duqeydii iyo deegaankii ay doorteen dowladda federaalku waxay ka hor timid qaabka doorashadu dhacday iyo ay u aragtay inayna sax ahayn waxay rabtay in dowladda federaalka wax walba looga dambeeyo oo dalku uu maaragtay prime ministerku wasiirka arrimaha guduhu wax walba uu hogaamiyo ay maaragtay iyagu hogaamiyaan meesha maamulka Jubbaland uu arkay in xeerka federationka ee ku maalgaarka uu dhigayo in maamul goboleed walba uu xaq u leeyahay inuu isagu doorashooyinkiisa aan lagu faragelin karin marka meesha waxaa weeye khilaafku waa khilaaf sharci ah waa khilaaf u baahan yacni in la xaqiijiyo oo la cadeeyo runtii dad sharci yaqaan ayaan u bandhignay khilaafka dowladda iyo maamul goboleedka Jubbaland u dhaxeeya cidda saxan iyo cidda khaldan iyo maaragtay cidda xaq u leh inay doorashada qabato dhammaan advokaatayaashii kala duwanaa ee dowladda federaalka iyo nidaamka federaalka yaqaanay waxay noo xaqiijiyeen in dowladda federaalku aynu wax shaqo ah iyo wax shuqula midna ku lahayn maamul isteediyada sida ay isu dooranayaan iyo cidda ay dooranayaan laakiin ay maamul walba uu xaq u leeyahay isaguna doorashadiisa si madax bannaana ugu qabsado iyagoo guddi doorasho samaynaya isla mar ahaantan oday dhaqameedyadii laga qayb gelinay oo soo xulayaan dadka dooranaya madaxweynaha markaas doorashaduna ay sidaa ku dhacdo marka dhammaan waxaa laisku raacay inayna dowladda federaalku aynan wax sharciyada oo u banaynaya oo inay wax walba iyada hogaamiso ayna meesha oolin laakiin madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiirka arrimaha guduhuba waxay sii caddeeyeen in ayna nidaam ayna iyagu hogaaminaynin uun marna dhacayn iyagoon marna dhahaynin sharcigaas sidan dhigaya qodob hebel baa noo saamaxaya sidan iyo sidan iyo sidan laakiin waxaad moodaa in madaxweynaha iyo prime ministerka iyo dowladoodu ay iska sawirteen keliya in iyagu maamul goboleedyada u tashaan sida shaatigoodii siday u tolan lahayn camal
arrintaasoo runtii arrin ka duwan arrin maaragtay aan dhammaan laisku wada raacin sababta waxaad ogtihiin maamul goboleedyada oo dhan iyagaas dooranaya yani marka laga reebo maamul goboleedyada ay dowladdu saamaynta ku yeelatay puntland doorashadeed doorasho xor ah oo dadka deegaanka salaadiintooda cuqaashooda ay doorteen oo iyaku abaabuleen bay dowladda federaalku wax rool ay ku lahayd may jirto wasaaradda arrimaha gudahan shaqo ku lahayn madaxweynahan shaqo ku lahayn prime ministerkan shaqo ku lahayn marka dad badan baa waxay isleeyihiin why puntland aadan wax shaqa ugu lahayn oo aad jubbalandna maaragtay rabto inaad remote-ka ugu qabato somaliland iyadu kaba sii daran way kasii xag jirtaa dowlad bay ku madax dhawaaqday arrimaheedoo dhanna wax shaqa iyo shuqul dowladdu ku leedahay ma leh xataa xiriiro caalami ay la samaynaysaa dowladaha imaaraadka iyo caalamka oo dhan dowlad federaal oo ka hadli karta oo maaragtay u buturinaysa ama diyaarado ka xiraysa ama xuduud ka xiraysa ma leh marka maxay tahay sababta dowladda federaalku ay u kala samaynayso dooro oo qaado yacni midkana inaynan waxba dhihi karin kana aynan waxba dhihi karin laakiin ay jubbaland mar walba ugu fafakanayso oo maray sargaal u dirto maray wasiir u dirto mar ay maaragtay dacweyso mar ay diyaaradii ka xirto ay u daba taagan tahay su-aalahaasoo runtii aan u bandhigin dad badan oo aqoon-yahana sababta iyo wax oo dhan si fiican aan barnaamijkan gaaban isku dayi doono inaan idinka jawaabno jawaabihii noo soo baxay iyo dadku waxyaaba ay maaragtay ay ku doodayaan marka koowaad waxaad moodaa dhibaatadu inay ka taagan tahay in madaxweynaha federaalka soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo iyo prime ministerka ay mar walba siyaasad ay raacayaan siyaasad amatoor la dhihi karo oo ah aan sharci ku dhisnayn waa marka koowaad markay yimaadeen xukunka waxay ahayd inay constitution cadow qeexaya awoodaha ay sameeyaan constitutionkii oo dhan ba umayna dhaqaaqin wax tallaabay u qaadeen inay constitution federaal oo fair ah oo maamuladii mid walba xuquuqdiisa wuxuu xaq u leeyahay wuxuuna xaq u leeyahay qeexaya marna mayna u dhaqaaqin waxaad moodaa madaxweynaha iyo prime ministerku inay iska sawirteen istiraatiijiye iyagu labadooda iska jeexdeen taasoo ah in maamul goboleedyada oo dhan ay keenaan madaxweyneyaal iyo kala jaal ah waddankao dhanna xukunkiisa ay gacanta ku dhigaan arrinta ayada ayaa marka dad badan waxay u arkeen oo aqoon-yahano ah ama la socda xaalka soomaaliya arrin ma aragtay hawkish sida ingiriisku dhahaan ama qariska tuurnimo mutahawirnimo ah oo aan sax ahayn farmaajo iyo khayre ma awoodi karaan inay maaragtay say rabaan dalka soomaaliyeed ka yeelaan soomaaliyana maanta wixii khilaafa ay soo dhacay wixii dagaal qabiil ay soo dhacay corruptionka cadaalad darrada maamul xumida jirta marna suurtagal ma aha in prime minister iyo madaxweyne iska ordahaya oo shalay waddankaba aan joogin oo waddankaba weligood wax ka soo qaban intay iska yimaadaan ay dhahaan hebelow tag hebelow joog saaxiibkay baa joogaya lacagaa waddan isoo siiyo dadkao dhan baa laaluushaya saa rabaan ka yeelaya waddanka no wax dhacaya suurtagal maaha sababta jubbaland iskama imanin jubbaland waxaa weeye ciidan baa xoreeyey shacab baa xoreeyey dad baa xoreeyey dadkaana waxay u xoreynayeen inaan dib dambe dulum iyo xadgudub iyo xaqdarro iyo maaragtay aynan meeshan uga dhicin bay ahayd mar walba oo shacabka isaga xorriyaddoodii iyo sharaftooda ay marna yimaadaan nidaamka keliga ee dowladda federaalka ama dowladda centraalku ay kusoo dhexgeli karto waa nidaam dastuuri ah oo constitution qaranka soomaaliyeed u degan oo ay cuskanayso qodob hebel iyo qodob hebel iyo qodob hebel prime ministerku hadduu constitution raacayo oo uu constitutionkii dalka sameeyey haa waa wax la garan karo madaxweynuhu hadduu sidaasi lamid yahay haa laakiin iyakiiba constitutionkii intay salka dhigteen oo gurigooda ay maaragtay dhigteen ay ku qarsadeen way u dhaqaaqi waayeen markaas haddana waxay rabaan inay sidii dowladnimo u dhaqmaan arrinta ayadaa marka wax la qaadanaya ma aha oo welibana cagajuglayn iyagoo adeegsanaya awooddii lagu aaminay ee dalka iyo dadku loogu doortay inay bulshadan si cadaalada ugu qaybiyaan oo si cadaalada ugu maamulaan ay hanjabaad socota waxaa jirta video clip aan daawanay prime minister khayre oo runtii uu ka hadlayo uu leeyahay nin qabqable ah oo kan ah oo qabqable ah saa marna ma samaynayo isagoo uga jeeda dabcan axmed sheekh maxamed islaan iyo dadka lamid ah laakiin prime ministerku wuxuu mar walba hilmaansan yahay inuu ahaa isaga laftigiisu mid badda gata oo shirkad burcada oo backgroundkiisa haddii laga eego shirkad africa oo dhan boobta oo tuuga ah oo ingiriiska laga leeyahay oo la yaqaano maafiyada adduunka isugu yimaadeen inuu u soo shaqaynayay prime minister qof walba haddii backgroundkiisa maanta la eego soomaaliya qof nadiifa wuu yari yahay marka master prime minister awood aad adigu waxaad rabto ka samayn kartid meesha ma yaalla madaxweyne sidaasi la eg baad la mid tahay laba shakhsi baa tihin shalay baa awooddan ladiin dhiibay awooddaa waxay ahayd inaad xigmad iyo si degan iyo nidaam iyo constitution dalka oo dhan u dhexeeya aad ummadda ku maamushaan ma ahayn hanjabaad iyo cagajuglayn iyo qabqablonimo iyo qar iska tuurnimo xiniinyaha iyo raganimada
iyo dhaarta aad muwaadiniinta Soomaaliyeed maalin walba kula soo baxaysaan soo ma habboonaatin odaygan raysiiste ee faashiiste ee Maraykanka ee maalin walba Soomaalida idaacadaha ka caynaya ee Twitterada ku caynaya inaad at least ugu jawaabtaan axmed sheekh maxamed al islaam waa muwaadin Soomaaliyeed hadduu khaldan yahay hadduu saxan yahayba yacni qofka bini aadamka waxaa lagu yaqaanaa islaamkeena nabigeenaba xadiis ku leh muslimiintu dhexdooda waa kuwa isu dabacsan isu hadal macaaneeya isu dhimriya oo isu tartiibiya een cadowgoodana ku adag oo cadowgooda runta farta ka saara odayga faashiiste ee raysiista ee nasabkii Soomaaliyeed iyo sharaftii Soomaaliyeed iyo cizigii Soomaaliyeed maalin walba meel uga dhacaya ee sida live-ka gabdhaheenii dumarkeenii waddankeenii constitution-keenii waxqabadkeenii intaba caynaya maad raganimo u heshaan farmaajo iyo khayre meeshaad maalin walba axmed madoobe hebel buu ahaa iyo qabqablu aad haysaan Soomaaliya way soo dagaashay dagaal qabiilo aad u foolxun baa soo dhex maray maantana waxa uma baahna dagaal horle in la geliyo ama khilaaf aan necessary ahayn la sameeyo Jubbaland intaad ku soo ordaysaan soo kama habboona badda Soomaaliyeed maalin walba nalkeeda idiin muuqdo ee shirkadaha maafiyada Iiraan iyo waddan walba ah ay ka kalluumaysanayaan ee khayraadkii Soomaaliyeed oo dhan xaalufinayaan ee nuclear-ka ku aasayaan soo kama habboona inaad halkaa aado oo priority-gaaga aad kala hormariso Soomaali qofku meesha Muuse Suude yalaxowba meel xeeba degan aad leedahay annagoo og inaa xeebaha safaaradii Maraykanka xeebtii ugu weyneed u istiraajay Soomaalida la siiyey Imaaraadka sidaasi leeg Turkiga sidaasi leeg ma aragti dhulka badeed ee dadka kale ajaanibta qaadanayaan laakiin kuwa Soomaalida kaliya aad aragtaa Muuse yalaxowba saana Axmed Madoobe kana indhihiin oo dhan Soomaalidun bay qabtaan meesha shaqadii ladii igmaday ahayd ummadda Soomaaliyeed in lagu kala hago taasoo ah sharciga constitution adduunku wax kale kuma kala baxaan sheeka xariiri anaa iri anaa jecel adduunku wuxuu ku kala baxaa qaanuunku muxuu dhigayaa qodob hebel baa saa iyo saa iyo ogol Mr Prime Minister iyo Mr President ma waxaad haysataa constitution kuwa ogolaanaya waxan inaad samayso oo saa u dhaqanto no ma jiro awi constitutionkii Soomaaliyeed xagee ugu dambeysay qabiyo qoraal buu ahaa waa la xaday baa noogu dambeysay maalinkaa timaado nolosha Soomaalidu waa markii koowaad ee la maqlo constitution baa la xaday constitutionka aan diiwaan gashanayn ee meel ku qorayn in la haynin ee la iska xadayo muxuu yahay macnuu yaro suuqa bakaaraha jooga ama suuqa maaragtay yaaqshi jooga baa constitutionka Soomaaliyeed gacanta ku hayay dad aqoon-yahano Soomaaliyeed oo hayo oo kaydinayo oo saxayo oo wax walba la kala kaydinay meelan ahayn marka muddada timaadeen waddanka Soomaaliyeed dayac buu galay khilaaf baa Soomaaliya dhexdeedii sii badanaya yacni nabadgelyada sii xumaanaysa waxaa la marayaa heer ay zakada ku qaybinayso al-shabaab dharaarto cad magaalada Muqdisho arrinta marka aan raba meeshan barnaamijka yar ee kooban anuun awoodin inaan saan rabo iyo wax walba dareemay aan meeshan ka soo jeediyaa waxay tahay farmaajo iyo khayre waxaa aad iyo aad u habboon si walba oo maamulka Jubbaland u khaldan yahay ma dhahayno maamulka Jubbaland waa malaa'ig wax walbana way u saxan yihiin way khaldanaan karaan wayna khaladaadyo badan oo aanu shakhsiyan ku dhaliili jiray baa jira laakiin qaabka dowladda federaalku u wajahayso sax ma aha marnaba dowladda federaalka Soomaaliyeed waxba gacanta uma jiraan waddanna ma xukunto waanu arkaynaa caasimadda Baydhabo prime ministerku markuu tagay salaanta wuxuu ka qaadanaya ciidamada Ethiopiana bay ahayd ceeb ka weyn miyaa jirta xumaan ka weyn miyaa jirta maamul goboleed Soomaaliya isagoo booqanaya in ciidamo ajaaniba ka qaato salaanta maamulka kali ee markaad u tagteen ciidan Soomaaliyeed iyo salaan Soomaaliyeed iyo calan Soomaaliyeed idinku soo dhaweeyay maamulka Jubbaland buu ahaa inaad dhahdaan isagii baan kala tuuraynaa oo aad ajaanib iyo u soo kaxaysaan Ethiopian baa qabanaya oo airport soo fariisanaya yacni qaranka Soomaaliyeed sidaas idinkama filayn idinkamana aqbalayo runtii waxaana aad iyo aad muhiim u ah arrintaas qaab dhaqankiina xunna wuxuu sababayaa inuu taageero badan maamulka Jubbaland iyo Axmed Sheekh Islaan ay helaan oo la garab istaago loona arkin arrintaasna waxaa ka faa'iideysan waana idiin sheegay hore mar walbaba siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxay ciyaaraan ciyaar qadar ah yacni oo qaab daran oo fool xun oo mar walba cadowgooda ay guusha u geynayaan wadamo badan oo ajaaniba waxaa jira maamul goboleedyada qaarkoodba loo sameeyey inayna Soomaalidu marna noqonin dad isku dhinac u jeestay dad isku dhinac u wada socdo yacni maahmaaree xamaraa jirta oo dhihi jirta canjeerada say u kala koraysaa loo kala qaataa yacni sooma habboona dowladda federaalka madaxweynaha prime ministerka inay priority kala siiyaan priority howlahooda waxa tallaabada koowaad ay qaadayaan talabaad ay qaadayaan saddexaad ay qaadayaan ooyna tallaabadii marka shanaad ay qaadi lahayn ayna marka koowaad ka bilaabin Jubbaland iyo sheekadaas goormaa la gaaraa soo kama horeysa magaalada Muqdisho inaad safe ka dhigtid soo kama horeysa constitution Soomaaliya oo dhan ku wada qacnaday oo awoodaha qeexaya
oo madaxweynaha maamul goboleedku wuxuu xaq u leeyahay iyo maamulka iyo dowladda federaalku xuquuqda isku leeyihiin qeexaya soo kama habboona marka hore inaad kaa samaysaan haddiise aad constitutionka dhinac iska dhigteen tallaabadii ugu mudnayd ee dhinac iska dhigteen waddankii oo dhan ajaanibi iyo ciidamo horle aad soo gelinaysaan oo markaad rabto maamul goboleed inaad tallaabo ka qaadaan aad ciidamo ajaaniba oo waddamo kale u dhashay aad keenaysaan idinkoo wax sharcigood kula socotaan iyo nidaam midna shuruucdii oo dhanna meel iska dhigay yani micnaheedu waxaa weeye waa saan rabaan yeeli aniga sidaan jeclahay hala ii yeelo arrintaa iyadaana maaragtay arrin suurtagal maaha madaxweyne iyo Mr. Prime Minister dadka Soomaaliyeed way ka soo gudbeen waqtigii hal nin uu awoodda jeebka ku ridan jiray lacag ay siisay waddanka Qatar iyo lacag ay siisay waddanka Turki iyo lacag ay siisay Imaaraad iyo Sacuudi iyo lacag AU igu deeqday yaan Soomaaliya oo dhan ku caburin dhulka oo dhan anaa iska xaraashisaan rabaan yeeli Soomaaliya oo dhan hoosteydaan geyn dowlad centralan samayn oo Soomaaliya oo dhan amarka hal nin baa wada siinaya waxaa weeye waa riyadii ibliisku uu ku sifriyooday jannatul firdowsi inuu tegayo wey arrinta iyadaa marna ma dhacayso mana suurtagelayso jaal madaxweyne iyo jaal prime minister marka waxaan idinku baaqayaa ummadda Soomaaliyeed inaydaan khilaaf hor leh iyo nacayb hor la sii baxdhigin meel fiican baad xukunka ku timaadeen runtii cabdullaahi yuusuf meel fiican buu ka bilaabay waxaa ku xigay sheekh shariif oo meel fiican geeyey xasan sheekh maxamuud oo meel fiican geeyey maanta madaxweyne farmaajo oo loogu rajo badnaa waxay ahayd meeshii meel kasii fiican inuu sii geeyo farmaajo meeshii meel kasii fiican inuu sii geeyahay runtii ma ahayn in dib loogu celiyo dadka Soomaaliyeed waxaan marna anfacayn waxaa looga baahan yahay marka prime ministerka iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay inayna dadka Soomaaliyeed dib ugu celinin inaanaydan dadka Soomaaliyeed jaala madaxweyne iyo jaala prime minister dadka Soomaaliyeed inaydan dib ugu celinin qabyaalad iyo damaaci iyo maaragta anaa iri iyo xukun iyo xintan weerarkiina aad ku qaadeen Jubbaland way noo caddahay inayna ahayn dowladnimo wanaag iyo sharci sababta sharci haddaad u jeedaan waad idinkaa samayn lahaa sharcigii constitutionka ee awoodaha qeexi lahaa laakiin sharci meel baad iska dhigteen waxa keliya ee aad Jubbaland isugu sii maqiiqaysaan wax kale maaha waa shidaal baa ku jira unbaad maqasheen shidaalkii iyo hungurigii iyo shirkadaad ka gadi lahaydeen iyo dhaqaale Jubbaland keliya unbaa indhihiisina ku caddaynaysaan ma eegaysaan masaalixda Soomaaliyeed ma eegaysaan priority-ga Soomaaliyeed iyo waxyaabaha ummadda Soomaaliyeed sida u kala mudan tahay marka waxaan idinku baaqaynaa jaal prime minister iyo jaal madaxweyne inaad joojisaan yacni qaabkan aad u dhaqmaysaan ee aan saxda ahayn aan caafimaadka qabin runtii qaabkaad u dhaqmaysaan ee hadda ee aan saxda ahayn inaad maaragtay joojisaan oo aad maaragtay dowladda Soomaaliyeed sidii maaragtay aad u badbaadin lahaydeen oo constitutionka number 1 ah wax walba waxa ugu horeeya ee dowladnimada number 1 waa constitution maalin walba constitution sameeyaa la dhahaa laakiin ma dhaqaaqdaan sababta qaranka Soomaaliyeed inaad dowlad ka dhigtaan dhaba uma jeedaan arrinta ayadana ma anfacayso waxa marka aan weerarkan aad qaadeen cunaqabataynta diyaaradaha runtii waxa weeye meel weyn kuma tegaysaan cadaawadiina sii badan shacabkaas cadow idiin soo noqon shacabkaana wuxuu ku riixi doonaa inay xiriiro la samaystaan wadamada ajaaniba kuwaasoo marka dambena meel ay kasoo noqdaan aan imanaynin taasna waxay dhibaato ku noqonaysaa masaalixdii qaranka Soomaaliyeed masaalixdii dowladnimada Soomaaliyeed wadajirka ummadda Soomaaliyeed bay ku noqonaysaa farmaajo khayr waxaan dhihi lahaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay xayiraadda diyaaradaha uga qaadan shacabka Jubbaland waxaa jiray gabdho iyo wiilal laga afduubay airportka magaalada Muqdisho kuwaasoo beel ahaan loo target garaysanayo ama Jubbaland bay soo mareen ama ku nool yihiin ama maamulkeedii ka mid yihiin wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee Jubbaland baa halkaa ku afduuban arrimaha noocaasa wax faa'iido oo khayriya farmaajo gaari doonaan maaha waa ku takrifal awoodeed iyadoon wax sharci ah la maraynin runtii ku xadgudub shakhsiyo hantidoodii iyo waqtigoodii iyo xorriyaddoodii iyadoo ah ciidan banaysanaa saan rabaan yeelaynaa annagoo og inay jirto arrimo badan oo ka mudan in la sameeyo ay tahay oo madaxweynaha iyo prime ministerku ay priority-ga siiyaan laakiin wixii priority-ga intaa ka tagteen xintanka Soomaalida iyo gabar Soomaalida airport-ka joogo la qashqasha iyo heblo la qashqasho wax weyn ma tagayso sadaqni waxay abuuraysaa kaliya kacdoon sii balaadha kaasoo idinka maaragtay mar walba idinku hor yimaada
waxaan rabnaa qodobkeena labaad inaan maaragtay kula hadalno maamulka Jubbaland oo uu Axmed Shaqo Cali Islaan uu u yahay madaxda maamulka Jubbaland runtii muddo ayuu soo jiraa waxaa muddadu markuu la aasaasayay sida maamulada kale oo kale ma ahayn maamulkan Soomaali oo dhan baa cadaawad ugu baaqday iyo nacayb iyo inaan shacabka Jubbaland maamul goboleed iyo dowlad goboleed iyo ku leeyihiin marna ayna abuurmin Soomaali oo dhan baa ku baaqday sababta ugu baaqeenna waxaa weeye waa nacayb iyo aragti gaabni shacabka loo hayay ilaa muddo aad u dheer sababta nacaybkaas shacabkaas mar walba u target garaysanaya ma garanayo yacni shacabka makhluuqa intaas Jubbaland majority-ga ahee ku nool yaa waxaa dad lahayeen waa qaxooti waa kan waddanka kuma noola iyadoo la xaqiray iyadoo la ogyahay taariikhda tii gumaysiga talyaaniga iyo tii ingiriiskaba dadkii kula dagaalamayay jubbooyinka ama salaadiinta u ahaa inay yihiin dad caana oo macruufa oo la yaqaano oo suldaankii aji oo dhan suldaan cabdi cali sonkor suldaan cali sonkor uu ahaa degaankan oo macallin mursal serinley janankii ingiriiska ee serinley joogay iyo talyaanigii ku laayay ee caanka ah Jubbaland baar dheere joogay taariikhdiisu ay wada caddahay oo ilaa iyo wajeer ilaa iyo gaarsi wada xukumayay taariikhdaa cad shacabka leh ee inta xaqiraada lagu hayay ee inta dulmiga lagu hayay ee meel walba lasaga soo urursaday si xuquuqdooda loo duudsiiyo muddo dheer iyo dagaal dheer iyo halgan kadib waxay ku guulaysteen inay helaan maamul Jubbaland oo ay ku midaysan yihiin saddexda gobol ee Jubbada Dhexe Jubbada Hoose iyo Gedo dowladda Jubbaland waxaa looga baahan yahay inay ogaato khatarta iyada shacabka iyaga xorriyadoodii iyo maamulkoodii iyo sababta loo target garaysanayo keligii sababta loo target garaysanayo Jubbaland keli ah ee Somaliland loo aadi karin ee Puntland loo aadi karin ee Galmudug loo aadi karin ee Hirshabelle loo aadi karin ee Koonfur Galbeed loo aadi karin prime ministerkii iyo madaxweynuhu markay aadayaan Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo Puntland iyo ilka cadaynaya oo jacayl u qaba shacabkaasi u tagayaan waa idin salaamay reer Baydhabo waa idin salaamay reer Gaalkacyo reer Cabdulwaaq jacayl bay muujinayaan laakiin maalinka Kismaayo soo galaan iyagoo weji frown leh oo weji qabiix leh oo nacayb iyo cuqdad ay uga buuxday imanayaan nacaybka shacabka isaga wuxuu ku mutaystay garan maayo ma waxay ku mutaysteen inay kiniisadaha inay Soomaaliya gumaysi ka xoreeyaan ma waxay ka mutaysteen inay taalooyinka ugu badan ee geeska Afrika ay leeyihiin ma waxay ku mutaysteen inay Ingiriiskii dhulka Soomaaliya gumaysanay iyo Boortaqiiskiiba intay la dagaaleen ay afka ciid u geliyeen ma waxay ku mutaysteen in Ingiriiskii ay ka badbaadiyeen inuu suu rabo Soomaaliya u maamulo maxay ku mutaysteen weji xumadaas iyo nacaybkaas iyo karaahiyadaas iyo xuquuqdooda in la xaqiro maamulka Jubbaland waxaa loo baahan yahay doorashadan kadib inuu isbedel ka bedelan dhaqankiisi lama soo damaaciyeen lagumana soo degdegeen haddii la og yahay maamulku inuu cagiis ku taagan yahay waxaa laga dareemayaa jilac waxaa laga dareemayaa kalsoonidii shacabkii oo dhan oon isku wada xidhnayn maamulka waxaa looga baahan yahay inuu dad aqoon leh oo wax maamuli og degmo walba iyo tuulo walba la sameeyo ciidan ahaan military ahaan iyo booliis ahaanna laysu diyaariyo sababtoo damaaciga waalan ee ka imanaya dowladda federaalka ah ee gobolkan keliya ku wajahan waa mid u baahan in lagu wajaho si mid ka daran si shacabkana uga nabadgalaan damaaciga waalanaya joogtada ee mar walba shacabka iyaga lagu bartilmaameedsanayo madaxweyne maxamed axmed islaam waxaa looga baahan yahay inuu tallaabooyin dhaqso ah oo degdega oo dhaqankiisa ka bedelan uu sameeyo isagiyo maamulkiisoo dhan shacabka Jubbaland ee saddexdaa gobol degana waa in degmo walba iyo tuulo walba xuquuqdeedii si buuxda u helaan si buuxda inay u heshaan oo gobolka shacabka Gedo xuquuqdoodii taam ay helaan oo shacabka Jubbada Dhexe xuquuqdoodii taam ay helaan oo wiilashan gafuurka duuban ee Jubbaland kaliya ku soo haray caalamkii kale oo dhan laga xoreeyay sabab ay u joogaan lama garanayo waa in wadooyinka ay fadhiyaan ciidamo dhaqsaa la qoro ciidamo degdeg la qoro oo ilaa 10,000 5,000 ah oo si fiican loo tababaray oo difaaca ammaanka degmo walba in loo dhammaystiro waxyaabihii asaasiga ah ee basiga caafimaad hadday noqoto iskooladii hadday noqoto warbaahintii hadday noqoto oday dhaqameedyadii golihii baarlamaanka waa in sharci saxa Jubbaland ayna qaab dowladeed u dhaqanto wey qaab dowladeed meediya xor ah madaxweynaha in la dhaliili karo golihiisa wasiirada la dhaliili karo in muxaasabo ay jirto wey Jubbaland waxaa loo baahan yahay inay u dhaqaaqdo waa cusub dhaqan dowladnimo oon dib dambe loo soo hunguriyeynin farmaajo iyo khayre waxa kaliya ay meesha ugu soo noqonayaan ma aha waxa u muuqata inuu khalal jiro inuu dulduleel jiro baa u muuqata
maalinkay dareemaan in dowlad ay ka jirto way cararayaan maalinkay dareemaan dowladda halkaas inay xididaysatay oo shacabkeedii oo dhan haysato oo tuulo walba dowlad tahay oo tuulo walba ciidankii difaaci lahaa diyaar yihiin farmaajo khayri kama maqli maysid iyagoo dhahaya madaxweynaha jubbaland iyo sida ay maaragtay puntland markay la hadlayaan afka gobeeday kula hadlaan bay kugula hadlayaan laakiin markay kaa dareemaan inaad dayac tahay markay kaa dareemaan inay wax badan kaa dhiman yihiin markay kaa dareemaan shacabku inuu qaybsan yahay waxaa weeye way soo degdegayaan wayna soo noqnoqonayaan waxaa markaa aan u baaqayaa shacabka jubbaland meel walbay joogaan khaasatan dadkii la tirtamaya axmed sheekh maxamed cali islaam oo ugu horeeya seeraar iyo xidig waxaan ugu baaqaya in wada hadal dhaba laga gaalo arrintan xalna loo helo runtii waxaa weeye looma baahna in lagu soo celiyo khalad hore soo dhacay khaladaadyada noocan oo kale ee ishaysadka ee xarkijiidka waa wax lasoo maray wax miro badan ay ka soo baxayaan ma laha waxaa weeye ijiidan ku jiidan waxaa la dhihi jira waa gacmo daalis shacabka jubbaland fursad in la siiyaa loo baahan yahay axmed sheekh maxamed islaan maamulkii 40 sano waa la siin karaa dadku intay khaldamaan wax isku qabtaan baa haddana laga gudbaa waa in arrintan iyada loo gudbo oo 40 sano maamulkan aan loo gudbo laakiin la diyaariyo nidaam dambe oo dimuqraadi oo deegaankan oo dhan aan doorasho la isugu imanin waa inuu jiro constitution qeexaya awoodaha madaxweynaha inta jeera la dooran karo oo cad waa in la sheego madaxweynaha ma soo sharaxi karaa ma 2 jeer ma 3 jeer ma 4 jeer waa in la qeexo waa in maaragtay nidaam baarlamaaniya oo iyo garsoor caadil ay meesha timaadaa dowladda federaalka waa in wada hadal iyo hadal macaan lagula dhaqmaa cadaawad in loo muujimaa si walba loo kala duwanaanaya si walbo ay tahdana waa madaxweynihii prime ministerka soomaaliya nacay ma khaladaadiyay gelayaan qaab inay u dhaqmaan ahayn bay u dhaqmaan laakiin haddana waa in lala hadlaa oo loo diraa dad maaragtay wada hadal ku fiican soo dhaweynta u fiican soomaaliya danteeda uguma jirto in farmaajo iyo khayra cadow jubbaland danteeda kuma jirto in farmaajo iyo khayra cadow laga dhigto sidaas si lamid ah ayay dowladda federaalkana dan ugu jira inay puntland inay maaragtay jubbaland ka dhigato cadow waxaa loo baahan yahay khaladaadii wax walboo jira in la dhaho seen uga gudubnaa see mustaqbal fiican oo danta soomaaliyeed ku jirto aynu u samaynaa arrintaa weeye arrinta loo baahan yahay lagu wada dhaqaaqa marka waxaa loo baahan yahay in maamulka jubbaland uu derdergeliyo hawsha iyada meeloo sii fariista ma leh damaacigan waalan ee soo noqnoqonaya jubbaland mar walba kusoo xiran noqonaya ee shacabkan shalay waa qaxootida lahaa ee xaqiirnimada aynu aragnay iyo maangaabnimada aynu aragnay iyo nacaybka aynu aragnay ee meel walba isqabsanaya soo noqnoqonaya wax kaloo ma soo noqnoqonayo shacabka jubbaland markay xaqooda u wada istaagaan qof walba bannaan ku fadhiisan hadduu madaxweyne federaal yahay hadduu prime minister yahay iyo hadduu deegaanka laga soo qaylinayba laakiin shacabka intuu qaybsan yahay ee la arko inuun xuquuqdiisa u taagnayn uuna sharaftiisa u taagnayn uuna cirdigiisa u taagnayn qof walbaa damacaynaya dad badan oo soomaaliyeed oo waxaa jira mar walba ku dhahaya jubbaland soomaaliya oo dhan baa leh oo yayna soomaaliya oo dhan xagee lahayn dhul walba soomaaliya muqdisho soomaaliya oo dhan baa leh waa caasimadii soomaaliyeed hiiraan soomaaliya oo dhan baa leh qabiil walba soomaaliyeed baa deganaa waa qabiil soomaali meelood maxaa keligeedun ka dhigay soomaaliya oo dhan baa leh yacni miyaan lagu kala badnayn qof baa badan qof baa yar qof baa kusii xiga muhiimad waxay tahay jubbaland maanta waa lagu wada noolyahay soomaaliya dhan waa ku wada nooshahay laakiin waxaa loo baahaya maamulka jubbaland inuu dad wax hogaamin yaqaana degmo walba tuulo walba u magacaabo in ciidamadii difaaci lahaa shacabka lagu soo socday lagu soo wajahay iyo cadaawadaad aragtay loo muujinayo in haddadan loo diyaar garoobo oo ugu yaraan ciidan hor leh la qoro oo ciidankii booliiska haykalkiisii la dhammaystiro oo kasirdoonka la dhammaystiro oo kii warfaafinta la dhammaystiro oo kii difaaca la dhammaystiro oo jubbaland cunuqabateyn baa lagu qabtay waxba tari mayso waana la cunuqabateeyey diyaarad baa naloo diiday iyo hebel baa umul raacday ma anfacayso waxaa loo baahaya inaad diyaarada aad leedahay samaysato waxaa loo baahaya inaad adiga waxaaga soo saarato khayraadkaaga waa kuu buuxaa kalluunkii waa buuxaa beerihii way buuxaan dhulkii waa kuu buuxaa ciidankii wuu buuxaa sabab maaragtay loogu meermeeraysta male diyaarad baa halkan martay waa in xal alternative la sameeyo taiwan ba wataasaa jayno ood aragteen iyo keligeed noosha oo isdabartay markaad dowladda federaalka laba mid inaad gashaan wey waa inaad dowladda federaalka aad awaamirtooda yeeshaan say rabaan idinka yeelaan ciday rabaan usoo magacaabaan haddii aad daadeen war xuquuqdeena ma aqbalayno in naloo yeeryeeriyo ixtiraamka ay mudan yihiin puntland somaliland iyo deegaanada kale ee soomaaliyeed ee dowladda federaalku iyadoo ixtiraamaysa ay mar walba u dhaqmaysa in loola dhaqmaa la rabaa haddii ay tiraahdeen waxaa idinka baahaya inaad ficilkii ladinku ixtiraami lahaa aad la timaadaan dad hogaamiyaal ah oo hadloog saxaafad media dhinac walba jubbaland waa inuu diyaar garowdo waxaan ugu baaqayaa xidig iyo seeraar yayna idiin muuqanin meel hoose
meel hoose shacabka jubbaland dhibku soo maray waa aad baad uga dheragsantihiin silacay soo mareen aad baad uga dheragsantihiin waxaan idinku baaqayaa in wada hadal dhaba la galo oo madaxweyne axmed maxamed islaan iyo labada mas-uulba ay xal waara oo lagu wada noolaan karo ay sameeyaan kadibna dowladda federaalka lala galo runtii oo madaxweynaha saddexda madaxweynaha ku-xigeenka iyo madaxweyne ku-xigeenka labaad gacmo dheere iyo axmed sayid iyo axmed sheekh maxamed cali islaan in xal waaro oo dowladda federaalka lagula dhiilgaray shacabka jubbaland oo dhanna laga xoreeya al-shabaab sababta waxa ugu daran hadda shacabka haysta waa al-shabaab nimankan gafuurka duuban ee degmooyinka loo kala socon layahay awood badan ma laha cudud badan ma laha waa soddon bay u socdaan soddonkooda maalinkaa disho soddon kale markay soo maraan ay disho maalin damba ma soo noqonayaan sababta loo dhowranaya mana fahmin ciidan waa buuxaa dad waa buuxaa hub baa loo baahaya hubkan waa iib buu yaala suuqoo dhan buu yaala maamulka jubbaland waxaa looga baahanya tallaabo dhaqso oo degdega shacabkan baraare degmada baraare afduub baa lagu haystaa xagar waa la mid weeye bu'aale waa la mid weeye jilib waa la mid weeye meelaha ay hubka badan ku haystaan la garayba sida jilib oo kaleeto waa ciidan badan bay u baahan tahay bu'aaliyi laakiin degmooyinka yaryar ee sida xagar iyo baraare oo kaleeto waa laga xorayn karaa looma baahna in al-shabaab lagu daawado shacabkaas waxay u baahan yihin nolol bay u baahan yihin mustaqbal bay u baahan yihin way gadoodayaan dadkii dadka deegaanka ka soo jeeday markii maalin walba wiil afduuban zaka xaaraana ka qaado xoolahoodii ka xoogo wax la aqbali kara maaha shacabka iyaga waxay u baahan yihin in dhulkooda laga xoreeyo jubbaland lama afmadow iyo qooqaan iyo baraari iyo kismaayo keliya maaha waa in iyo geda keliya maaha waa in dhulkan shacabkan xornimo u baahan yahay khaasatan shacabkan caloosha ku jiro deegaanka la xoreeyey sida baraare oo kale degmada baraare sabab ay al-shabaab gacanteeda ugu sii jirto ma laha taageero badan kuma laha shacab badan kuma laha waxaa weeye afar wiiloo soo dhuumatay oo gafuur dubanba maalin walba intay mareeri kasoo baxdo oo jilib kasoo baxda bay soo gelayaan joore maha afartaa wiil haddii maalin la toogto maalin labaad la toogto maalin dambe ma soo noqonayaan dowladdu waxaa loo baahanya tallaabo cadcad inay qaato degmada dad ka xoreyso waxbarashadii deegaanka dib loo activate gareeyo shacabka jubbalandna ay u istaagaan in ay degaankooda dib dowladnimo dhaba ay ka sameeyaan runtii dowladnimadu waxyaaba badan baa ka dhiman maamul goboleedyada soomaaliyada oo dhan waa inay yeeshaan national id welibana casri ah oon ahayn maaragtay national idgan iska beenta ah yani soomaalida waxaad arkaysa xataa id ma laha puntland baan ahay baa puntlandis baa lagu leeyahy lakin id ma jiro waxaa laleeyahay jubbalandis baana jubbalandis inaad tahay maxaa caddaynaya waa xuduud iska furan cid walbaa soo gelaysa kenyaati baa soo gelaya tanzaniyan baa soo gelaya jawaasiis baa soo gelaysa dadka furduuman baa soo gelaya cid walbaa soo gelaysa waxaa laga rabaa madaxweyne axmed maxamed islaan inuu maaragtay go'aamo decisive uu qaato dagaal buuna dowladda federaalku way cadaystay mowqifkeeda caruurtiiba hadday airportka u taagan tahay iyo haweenkiiba ay ku xadgudbayso yacni wejigeeda qabiixa way ku tustay waxaa loo baahanya shacabka jubbaland mar haddii aad tiri madaxweynaan u ahay inaad dad karti leh degmo walba loo magacaabo tuulo walba loo magacaabo ciidankii difaaci lahaa booliiskii sirdoonkii dhaqaalihii ilihii dhaqaalihii shacabka ku noolaan lahaa waa in la sameeyo jubbaland dhaqaalaheedu way haysataa ma aha waddan saxara ah waddan united nation iyo carab baa lacag siiso inuu ku noolaado loo baahay male jubbaland waxay leedahay kalluunkii oo ciidaasa intaasoo doomooday u baahan tahay keliya mombasa hadday geyso doomaheeda kalluunka ka taajiri kartaa ciidankeeda ka biri kartaa dowladdeedana ka masruufi kartaa arrintan ah diyaaradaha laftigeeda xataa dowladda federaalka hadday cirka ku guulaysto intaasoo jid oo kaleeto oo waxaa jira shacabka jubbaland ay mari karaan waxaan rajaynayaa inuu mowqifka isaga ee aan arrintaa jubbaland kaga hadlayay halkaa ku caddeeyay dowladda federaalkan waxaa ugu baaqayaa inay joojiso faragelinta iyo xadgudubka runtii ay ku hayso shacabka soomaaliyeed ee jubbaland ee cunsurinimada ah ee hunguriga ah ee dowladdii oo muqdisho gacanta ku hayn lao al-shabaab canshuuraha ku qayminayso axmed madoobe keliya dusha laga saaran yahay deegaanka jubbaland dhib badan buu soo maray maanta qabiil soomaaliyeed oo nabad ku ahayn ma jirto ganacsi baa ka socda nabad baa ka socda axmedna nin maaha maaragtay wax weligii meeshaa taagnaanaya waa shakhsi yimid wuu tegi qof kalena bedeli doona laakiin waxaa loo baahan yahay in sharcigii waddan ku shaqayn lahaa kaasaa ka mudan jubbaland howlaheeda madaxweynihii prime minister waxaan leeyahay focuska saara arrimaha danta guud ugu horeeya sharciga markaad samaysaan cid walba waa idinka qabanaysaa sharciguna ha noqdo ma aha inay sameeyaan kuwan tuugada ee baarlamaanka fadhiya waa inay sameeyaan dad aqoon-yahanoo soomaaliyeed oo masaalixda soomaaliyeed ku weyn tahay oo soomaalida wanaageeda jecel dadka iyagaa laga rabaa inay sameeyaan
barnaamijkeeni maanta uu idiin soo gudbinaya anigoo ah khaliif cabdi cali tan iyo intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmayno intaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu